بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم kulanti habboon daawadeel idilhaantiinba waxaad ku soo dhawaataan qaybtii tobnaad ee taxanaheennii irbadii eelka reebtay qaybteennan waxaa ku bilaamaysaa sidan durbo waqti aan raagsan jiray ayaan dareemayaa inuu iga cararayo qorraxdii ayaa naga libidhay dhammaantoyana dhismahayagii ayaan nimi aways kale ayaan sii galay misena ani iyo bushaari qolkayagii u soo gudubnay caawadan way iga duwan tahay kuwii hore weji mugdi hadheeyey ayaa cadceedii u soo bidhaamaysaa bal qiyaas farxadda naf xabsi ku jirtay oo xorriyaddeedii maalmo yari uga harsan yihiin in badan ayaan anoo jiifa duni kale socod ku marayey mustaqbalkan xalay shakiga gelinayay ayaan isla caawaba wax ka saadaalin karaya waa duni iyo xaalkeed habeenkuu igu dheeraaday runtii waxa keliya ee aan doonayay degdegna u rabay wuxuu ahaa in waagu bariyo fasalkaygii cusbaana dhex tago waan seexday hurdo xasilloon riyooyin qurxon oo wada cadina ka buuxeen malaha waa mustaqbalkii ifayey aan ka fikirayey yaa garan kara waal labaad baa ii bariyey sidii aan shalay ku qaabilay si ka niyadsan ayaan u soo dhoweeyey haddii shalay ay cagajiid iga ahayd saakaba waa anigaa xawaaraynaya waanigan xitaa quraacdii sidii beri laba jeer cantuugay bushaaro oo ku faraxsan isbeddelka korkayga ka muuqda ayaan sidii laba carruura oo hooyadood madeersad u dirtay wada duulnay dhankii fasalkana abbaarnay masaafadii fogeyd maanta ma jirto oo daqiiqado yar kadib albaabkii fasalka ayaan taagnay intaanan gelin ayay bushaari iyadoo farta laba kursi oo macallinka hoos yaalla ku fiiqaysa tidhi maanta safkaygii baad ila fadhiisanaysaa ee ku talagal waa kuwa labadii kursi xaggaa inooga bannaan waan yaro naxsanaa sidii shalay semaan ahayn waan ku dhiiraday in aan fadhiisto bartii ay ii tilmaamaysay maalin cusub maado kaloo cusub luuqadahana ku saabsanayd iyo macallin cusub ayay noo ahayd waxa keliya ee aan yaro karahayay ayaa ahaa barashada joogtada ah ee macallin kastaa kaa doonayay markiiba indhaha macallinka cusubi waxay qabteen kuwayga wuuna i kiciyey isagoo magacayga i weydiinaya waan u sheegay iskana fadhiistay kadib idinkiisii maalintaana waxaan soo wada qaadanay waqti wacan kana wanaagsan intuu doono kii shalay naftaba in dib lay soo geliyey ayaan moodayey naf aamustishooday ayaan bashmaha u furay sidii ubax ka horse waxaan dib u baranayay erayada qaar aan ilaaway muddo badan oan hadalka ka soomanaa ilmo yar oo urursanaya kelmadaha deegaanka ku xeeran ayaan ka dhignaa kaftan ayaan marba mid iyo laba asxaabta ku tuurayey iyana qosol iyo dacaayid ayay isugu kaydarayeen durba nolol aan udgoonkeeda sida saxansaxada roobka ku raaxaysanayo ayaan galay bal sawiro qof jiyaal daba dheeraaday ku jiray oo dhibcihii roobka ugu horreeyey madaxiisa qooyeen waxaad kaloo sawirataa qof xilli habeennimo oo dabaylo iyo duufaanno xooggani dhacayeen doonni ku dhex marayay badda baaxaddaad og tahay leh oo u soo dhowaaday ilayskii barriga sawiro sidoo kale guuro habeennimo qof ku hadlaabay oo habar tugaagna codad kala duwan dhinacyadiisa ka bixinayso cid iyo ciise toona aanu jirin oo ku soo baxay reer meel deggan goor aan geed iyo qof la kala saarayn muuqaaladaa oo dhan naftaydan casarliiqa joogta ayaa ka dhignay naftan bixi weyday geeridase diyaarka u ahayd baa waxaas oo dhan la mid ah inta jeer ee aan sigtay adba waad og tahay maalintaa aan joogay si walba maalmihii tegey way uga duwanayd udugga maalmaha soo socdana lama qiyaasi karo kol haddii labadii cishee u horreeyeyba laydh caafimaad ii martay ma qiyaasi karin farxaddii wejiga qurxoonaan jiray nuurka u soo celisay sidii wax waalan baan isleeyahay kor ma u qaylisaa oo ma tidhaah waan faraxsanahay intaasi kadib maxaa dhacay la soco daawade qaybtiinoo xigta qaybteennan maanta sheekadanna waxaa qoray qoraa cabdilaahi saalax axmed